gobolka Sanaag inta aanu ka degno ee maanta aanan gacanteeda ku jirin ee cid kale ay gacanta ku haysan waa garanayna marka si guud jabhadda iyo jamaahiirta iyo halgamayaasha si guud waxa looga fadhiyaa dhulka inta maqan ay soo celiyaan deegaankeena maadaama uu deegaan ballaaran yahay anigu ma aaminsani guumays horta inay tahay xuduudkayga inay tahay ma aaminsani xuduudana xuduud daleed ma aha waa xuduud beeleed weey sidaan wada ogsoonahay xuduudayada waa la yaqaanaa reerka la yiraahdo dhulbaahante xuduudiisa waa la yaqaanaa maalintii aanu halkan ka jafnay nimanka aanu waxa weeye aanu guumays dhaafinay warbixin yar oo aan bixiyay waxa kamid ahaa inaan tilmaan ahaan u bixiyay inuusan xuduudkayaga ahayn guumays inuusan ahayn waxa weeye maaragtay waad garanaysaan oo haday caynama noqoto iyo haday ilaa iyo labadii gaatama waxa weeye xuduudkayaga waa burcadileedkiisa way marka laga hadlo sida saxda marka loo hadlo inta marka si guud taasi waa taa xaggan kale gobolka Sanaag inta aanu ka degno ee maanta aanan gacanteeda ku jirin ee cid kale ay gacanta ku haysan waa garanayna marka si guud jabhadda iyo jamaahiirta iyo halgamayaasha si guud waxa looga fadhiyaa dhulka inta maqan ay soo celiyaan inaan waligeed waxa weeye guumays iyo waxa weeye laasacaanood iyo waxa weeye maaragtay yeelay inaan isku hor fadhiyeen waa burcad duleedkeeda wala isku hor fadhiyaa haduu Ilaahay yiraahdo bishii koowaad 2000 iyo waxa weeye maaragtay 23 oo waxa weeye halgankeena qaybihii ugu xoog badnaa uu ka bilaabmay gobolkan ilaa iyo maanta aan marayno bishii sagaalaad waxa weeye maaragtay fursadda la isku arki karay way iska yaray laakiin haddana waxyaabaha aan ugu jeclayn waxa weeye maaragtay ama is aragga ama kulanka waxa weeye si gaara jamaahiirta reeson bay ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ku mahadsan ilaahay caawi sukaayo keenay juhdi badan iyo tacab badan kadib inta kadib waliba si gaara mar walba maaragtay inaanu maaragtay idinkugu mahad celino waanu jecelnahay hadii ilaahay raahdo ilaahay baan mahad iskale inta markaan ka soo gudbo kullay si guud waxa weeye maaragtay deegaankeena halgan fara badan buu soo maray halgankaas oo maaragtay noocyo badan iyo xilliyo kala duwan soo maray kullay xilliga maanta aanu joogno waxa la dhihi karaa uu noo najaxay baa la dhihi karaa wax walbaana waxa weeye maaragtay waqtigii uu ku munaasabka ahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu soo simay kullay kulankeena caawa jamaahiirta marka laga yimaado anagu waxaanu ku matalaynaa jabhadda SSC baanu ku matalaynaa si guud qaybtii walibana ciidanka walibana jabhaddu xilliyo kala duwan iyo maraaxil kala duwan oo ay soo martay haddana inay hawl gasho sababkeeda waxa iska lahaa jamaahiirta iska lahayd sababkeeda ayada iska lahayd jabhaddu ayadoo diyaarsan oo waxa weeye maaragtay xiriyaheedii iyo xarumaheedii oo walibana gobolka Cayn ah kala deganayd oo qaab ay u dhaqaaqdo iyo qaab ay u hawl gasho marka aysan muuqanayn oo duruufaha jirana ay ahayd indee waanu garanaynaayo cadawgu wuxuu isticmaalayay dad fara badan oo dadkeena kamid ah annagoo ilaalinayna in dadkeena uu iska hor yimaado ama dadkeenu waxa weeye maaragtay dhibi ka dhaxdhacdo waanu ciidamada waxa lagu hayay xiriyaha cidda ka soo saartay oo inay hawl galaan keentay oo soo salaxday waa jamaahiirta weeye inta kadib deegaankan gobolkan Sool markay mudaharaadada ka bilaabmeen si gaar ah baan dhaqdhaqaaqiisa ula soconay dhaqdhaqaaqiisaasi aan la soconay waxaanu raadinaynay ciidankaasi fursad uu ku hawlgalo ilaahay fadligiisa waqtiyada kamid ah dhacdooyinkii gobolkan ka dhacayay ayadoo ciidankii uu iska diyaar yahay baa dhacdooyinkii kolley waxa kamid ahayd gabar gabdhaha kamida dadkeena oo gaari la jiirsiiyay waliba waxaan filayaa gabadhaas markii dambana lug baa la jaray ayadoo xilli dambe ay habeenkii tahay oo aan waxa weeye si uun marka aan si yara seexanayo waa gabadhaas ba maskaxdeeda saa ugu wareegtay waa hore u gami waayay hurdadii baan ka soo kacay waan soo toosay waan soo tagay laba nin baan guryahoodii ugu tagay oo ragga saraakiisha kamid ahaa waan ku garaacay war soo toosay baan ku iri xaaladda ka warrama xaaladda halkaas wax maraysa waan is waraysanay habeenkii maana seexanay xariib baan ku guuranay habeenkii ku xigeenay geedigii baan soo bilawnay